oo ka howlgalay aniga iyo saraakiil kale oo boolis iyo military iyo nabadgelyada intaba isugu jirta oo ujeedkooda ahay madaxweynihii hore oo waqtigiisu dhammaaday oo dadka iyo dalka inuu afgembiyo oo wuxuu ku jooga raba diidan oo kasoo horjeedno rabna inaan dadka ka dulqaadno oo ka howlgalna meeshaas la galab maqalkii ilaa hadda ku sugan joogna kasoo bilow dabka weli maxaa dhihi jiray isaga ilaa sayidka maxaa dhihi jiray isaga ilaa maxaa dhihi shanta geed isgoyska maxaa dhihi jiray bakaaraha inta ka dhexaysa annagaa ku sugan hadafkaanuna wuxuu yahay haddii alla ogolaado inaan isaga tagno haddii berri waqtigaan hadda joogno waqtigeeda kale uu ku gaaro farmaajo meesha ma sii joogi doono waa si uu madaxweyne u ahay buu ahaa doonaa waxaa waaye madaxweyne farmaajo madaxweyne hore farmaajo xilka waqtigiisa dhammaaday waxaa waaye keligii talisnimada dadka la dayeerayaan maxaa saad bara joogi lahayn dadka iyo dalka madaxweyneyaal badan baa soo mareen doorashadii ku imaan jireen waqtigiisa dadka dhammaadaan waa ka tegi jiray farmaajo waa diiday wax aan sharciga waafaqsanayn buu rabaa inuu ku dhaqo iyo dalka raallina kama nihin waana isku qaadaynaa waana sida aan xabad u bilownay mana joojin doono ciidamadiinan aad sheegtay in sayidka ilaa horwadaag aad la wareegteen yaa idin hogaaminayay anaa hogaaminayay abdulqaadir maxamed warsamo ah oo gaashaalo saraa saraakiil kalaa joogtay ma magacaabayo laakiin ma maqsuumi doonaan askartan dowladday ka mid ahaayeen mise waa militarigaa ku jira boolisaa ku jira ciidamada dowladda u shaqaynayo hore kamid yahay guriga xal aan dagaalayn maysinna annaga hal kala ma haynaba inaan isdhaafino kabacdi inaan doorasho galna maan wax kala ma hayno dagaal baa dhacay wax khasaare ah ka jiyo annaga xaggaan wax khasaaraha gaaray meesha kenya ma jira ma jiraan dhinaca kale maxaa khasaare ku jirteen ciidamadii dhanka kale annaga khasaaraha gaaray inaan ka hadalno xaq uma lihin ayagaa juhud ku warsan doonta ciidamada la wareegay horwadaag degmada aad ma ku jirteen xal howlwadaaga degmada aan la wareegni waxaa waaye mataqaanaa isheeg haddana madaxtooyaan rabnaa aan la wareegno ka maali doono socodka aan hadda hawsha aan wadna ma jooji doono waxaan ku joojin karnaa inaan dhibano waan wax aan sugayno ama hadda aan raadinayno ama hadda ka hornaa maqlayn ama aan rabnaa ma jiraan dadka magaaladan waan waxaan loo in farmaajo is aslo ama uu ka tanasulo labadii sano dadka magaaladan xabad iyo dhibaato waa ka gaareen isleediin in aad u turtaan waayo ma uga roon tahay gumaysi iyo kaligitanimo ma qaadanayno meelaha hadda aad ku sugan tihiin ciidankiida isgooska bakaaraha shanta geed isgooska dabka weheliye ilaa sayidka dhulkaas oo dhan ku suganna ayay ku dhexaysa ciidamada magaalada kale ka dagaalamaya dhammaan waa sugaanna taariikhda soomaalida ujeedkan waa in farmaajo meesha soo yaad gacan ka helaysaan oo kale marka laga reebo inaad idinka dagaalka ka qaybgatiin oo Soomaaliya Korea ma cid Soomaaliya Korea soo daan gacan ka furnaanaysa